السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك حران علم وار ميديا مركز سود وهذا أدي هذا وما سنت هدي أنا لجوكتي وسبسكرايب كتها علم وار ميديا هدي أنا قعصت تاي فلان سبسكرايب صار علم وار ميديا جنب لك أنا فرصي هذا شور بحنا ذا المستقبل كسوق لي هدي الله يدمو أصحابت هذا الله وداك سي وقف فايدستان سيد أدوق فايدستي وتهدي أن جود قلو برامج كان مانتي دي وضو مدحوين دونالد ترامب أي واحد وصوصري أمر فلونات oo uu ku joojinayo ilaa iyo 4 nooc oo fiisiyaal ah oo shaqaalaha dibadda ay wadanka ku imaan jireen isla markaana ay uga shaqaysan jireen waxa la leeyahay ilaa iyo nus milyan shaqaale dibadda ka imaan jiray oo wadanka Mareykan gudihiisa ka shaqayn jiray ayay amarkan uu saameynaya uu madaxweyne Trump ku joojiyay fiisiyaashan waxana madaxweynuhu sabab uga dhigay arintan in uu doonayo in shaqaalaha wadanka ku sugan ama dadka wadanka u dhashay ay shaqeeyaan si dhaqso ah ugu soo kabsado dhaqaalaha wadanka uu saameeyay cudurkan coronavirus ka hadaba fiisayaashan uu madaxweynuhu joojiyay ama uu mamnuucay waxa kamid ah waa si ku meel gaar ah uu joojiyay waxa kamid ah fiisaha la yiraahdo H-1B H-4 H-2B iyo sidoo kale J-L ayaa kamid ah fiisayaasha ilaa iyo 4taasi nooc oo fiisayaasha ayaa madaxweyne Trump si ku meel gaar ah u joojiyay oo shaqaalaha dibadda ay wadanka ku imaan jireen shaqaalaha xirfadda leh ee professionalka ah ee aqoon-yahanada xirfadooda ay aad u sareyso ay wadanka ku imaan jireen isla markaana ay uga shaqayn jireen waxa la leeyahay ilaa iyo 525,000 oo qof ayay saameynaysaa waxana madaxweynaha uu amarkan uu sheegay in uu socon doono ilaa iyo dhamaadka sanadkan waxana la ogeyn sidoo kale madaxweynuhu inuu kordhin doono amarkan marka sanadkan uu dhamaado hadaba fiisayaashan marka shaqaalaha ku kala imaan jiray maxay kala yihiin fiisahan la yiraahdo H-1B waxa ku imaan jiray shaqaalaha u imaanaya shirkadaha dhinaca tiknoolajiyada waxana sidoo kale dadka ku imaan jiray oo xirfadoodu aadka u sareyso waxa kamid ah sida dadka science-ka bartay dadka sidoo kale technology-ga bartay dadka engineering-ka bartay iyo waliba dadka xisaabta bartay oo khibradda aad ah ku leh ilaa iyo 85,000 oo shaqaalaha ayaa sanad kasta fiisahan la yiraahdo H-1B ku imaan jiray wadanka si ay uga shaqeeyaan sidoo kale fiisahan kale oo magaciisu yahay H-2B waxa ku imaan jiray shaqaalaha dhinaca hoteelada ka shaqeeya dhinaca soo dhaweynta hospitality-ga iyo sidoo kale shaqaalaha dhinaca beeraha ayaa isagana fiisahaasi ku imaan jiray fiisaha la yiraahdo J-1 waxa ku imaan jiray shaqaalaha barta exchange sida lacagaha loo kala sarrifo oo waliba ardayda u badan ayaa ku imaan jiray halka sidoo kalena fiisaha la yiraahdo L-1 ay isticmaali jireen kambaniyada waaweyn si shaqaalaha ugu kala wareejiyaan gudaha wadanka ayay keenayaan kadibna waxay u qaybinayaan shirkadaha wadanka ka shaqeeya ayay u kala dirayaan dadka marka fiisahaasi la yiraahdo L-1 ayay isticmaali jireen waxa sidoo kale madaxweynaha uu xaqiijiyay in uu doonayo in uu fursad siiyo shaqaalaha wadanka isla markaana dhaqaalaha wadanka sidii kor loogu qaadi lahaa laakiin qaar kamid ah shirkadaha waaweyn ayaa iyagu cabasho ka muujiyay waxaana ay sheegeen shaqaalahaasi dibadda uga imaan jiray ay mushaar yar ka qaadan jireen isla markaana shaqo xirfadoodu ay aad u sareyso ay qaban jireen oo shaqaalaha wadanka ku dhaqan ama wadanka u dhashay aysan qaban karin waxaana shaqooyinkan ay ahaayeen shaqooyin ay ku takhasuseen dadkan wadanka dibaddiisa ka imaan jiray iyadoo sidoo kalena qaar kamid ah shirkaduhuna arintaasi ay walaac ka muujiyeen oo ay sheegeen in shaqaalahan wadanka dibaddiisa uga imaan jiray ay sidoo kale ay xirfadoodu ay aad u sareysay madaxweyne Trump ayaa sidoo kale waxa uu kordhiyay amarkiisii kale oo 22 bishii afraad ee Abriil uu soo rogay oo ahaa dadka green card ka qaadanaya ee wadanka imaanaya oo wadanka dibaddiisa ka imaanaya arrimo ganacsi iyo sidoo kale inay ku noolaadaan isagana wuu kordhiyay inkastoo aan la sheegin muddada uu kordhiyay laakiin amarkaasi oo 60 maalmood ah 2 bilood madaxweynahan uu soo rogay 22 bishii afraad haddana wuu kordhiyay maadaama 60kii bari ama 2 biloodba ay gabagaba ku dhowdahay waxaana madaxweynaha uu sheegay in sidoo kale amarkaasi uu kordhinayo in dadka viisaha ama green card ka qaadanaya ee wadanka imaanaya isla markaana doonaya inay wadanka ku noolaadaan ama ay ka shaqeystaan green card ka ay ku imaan jireen isagana sidoo kale waa la joojiyay horaantii bishan marka ayaa golaha ay ku midaysan yihiin warshadaha
tiknolojiyadda oo loo soo gaabiyo ITI waxa ay waraaq u direen madaxweynaha waxaana ku midaysan shirkado dhan ilaa iyo 72 shirkadood waxaana sidoo kale madaxweynaha ay u muujiyeen muhiimadda ay leedahay in shaqaalahan xirfadooda ay aad u sareyso oo dalka dibadiisa ka imaan jiray ay wax weyn ka qaban karaan in dhaqaalaha wadanka oo ay ka caawin karaan inuu si dhaqso ah ugu soo kabsado laakiin madaxweynaha arintaasi waa uu diiday oo uu iska dhiga tiray waxaana uu amar ku soo rogay uu diiday dhammaanba shaqaalihii wadanka dibadiisa ka imaan jiray isla markaana viisayaashaasi sidoo kale ku imaan jiray waxaana sidoo kale viisayaasha ay shaqaalahani ku imaan jireen sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu ku leeyahay Palm club wuxuu ku leeyahay Palm Beach oo ku taala Florida waxaana sidoo kale uu ka mid yahay clubkiisa dadka meelaha ama kambaniyada ay shaqaalaha dibadda ka yimaada ay ka shaqeyn jireen isla markaana lacag raqiisa ay uga shaqeyn jireen marka madaxweynaha isaga nafsad ahaantiisa saameyn ay ku yeelan doontaa maadaama isagu madaxweynuhu ganacsiyo badan ayuu leeyahay hoteelo ay ka mid yihiin goobo club ay ka mid yihiin goobo golfka lagu ciyaaro ay ka mid yihiin goobo lagu nasto ay ka mid yihiin dhammaantoodba madaxweynaha sidoo kale way saameyn doontaa goobihiisa ganacsiga maadaama dad shaqaale dibadda ka yimid oo lacag raqiisa ku shaqeynaya ay sidoo kale halkaasi ka shaqeyn jireen waxa sidoo kale qaar ka mid ah kambaniyada ayaa iyaguna soo dhaweeyay in la joojiyo isla markaana waxay sheegeen in loo baahan yahay in looga faa'iideeyo shaqaalaha wadanka ku dhaqan isla markaana wadankan ku nool oo u dhashay inay ka shaqeeyaan shirkadahaasi waaweyn laakiin qaar ka mid ah shirkaduhu waxay leeyihiin shaqada lacag raqiis ayaana lagu qaban jiray shaqo xirfadeedu ay aad u sareysana sidoo kale waa lanoo qaban jiray marka waxa madaxweynuhu oo amarkan ka mid ah in shaqaalaha wadanka joogay oo horay viisayaashaasi ugu yimid in aysan saameyn doonin oo sidoodii ay u sii shaqaysan doonaan laakiin kuwa hadda kadib imaanayay ayay saameyn ay ku yeelan doontaa viisayaashan madaxweynaha amarka uu soo rogay isla markaana uu ku joojiyey waxaana la leeyahay ilaa iyo nus milyan shaqooyin ah ayay qaban jireen shaqaalaha wadanka dibaddiisa sanad kasta ka yimaada madaxweynaha ayaa waxuu sheegay in arrintan uga gol leeyahay in dhaqaalaha wadanka uu doonayo si dhaqso ah inuu usoo kabto isla markaana dadka wadanka u dhashay uu uga faa'iideeyo iyadoo sidoo kalena qaar ka mid ah khubaradu ay soo jeediyeen maadaama heerka shaqo la'aanta wadanka ay 13% gaartay in loo baahan yahay in la joojiyo shaqaalaha dibadda ka imaanaya si shaqaalaha wadanka ku dhaqan looga faa'iideeyo marka amarkan waxa uu yahay mid dhaqan galaya oo ilaa iyo inta ka dhiman sanadkan shaqayn doona laakiin waxaan la ogeyn marka sanadku uu dhamaado in mar kale madaxweynuhu uu kordhin doono maadaama inkastoo doorasho ayba dhacayso dhamaadka sanadka oo aan la ogeyn madaxweynuhu inuu soo laaban doono iyo in kale iyadoo sidoo kalena ololihiisa doorashada uu hadda ku guda jiro dhinaca marka kale haddaan u weecdo oon intaas uga gudbo amarkii fulineed oo madaxweynaha uu soo rogay oo ku mamnuucay shaqaalaha ajaanibta ah ee wadanka dibaddiisa viisayaasha uga imaan jiray si ay wadankan uga shaqeeyaan weliba iyagoo xirfad yar ku shaqeynaya shuruudahana waxaa ka mid ahaa in aysan shaqooyinkoodu saameyn ku yeelan shaqooyinka dadka wadanka ay qabanayaan isla markaana sidoo kalena aysan mushaarkooda uu ka hooseeyo mushaarka shaqaalaha wadanka ay qaataan marka hadda gebi ahaanba waa la mamnuucay oo ma imaan doonaan dhinaca cudurka coronaviruska haddii aan u weecdo ilaa iyo 23 gobol oo ka mid ah gobollada wadanka oo ugu horeeyaan California, Texas, Florida, Arizona ayaa la leeyahay kiisaska cudurka cirka ayay isku sii shareerayaan aqalka cad hadda wuxuu u garwaaqsaday in hir kale oo cudurka coronaviruska laga yaabo inuu dhaco xilliga foolka marka la gaaro August ama September waxaana la sheegay in aqalka cad hadda uu bilaabay diyaar garowga sidii loogu diyaar garoobi lahaa wajiga labaad ee cudurka coronaviruska sidaad la socotaan madaxweynuhu dhowr jeer ayuu iska dhiga tiray baaqyada ay soo jeedinayaan xeeldheerayaasha caafimaadka oo ah in hir labaad oo cudurka coronaviruska uu imaan karo amaba hadda lagu guda jiro sida muuqataba oo inta badan gobollada wadanka kiisasku ay cirka isku sii shareerayaan madaxweynaha waxa uu ka sheegay in soo bixiisii uu ku bilaabayay ololihiisa dib u doorashada madaxtinimada uu Tulsa Oklahoma ku qabtay in isagu uu amray in la joojiyo baaritaanka dadka wadanka lagu sameeyo maadaama uu sheegay in kiisaska cudurka coronaviruska ee wadanka ay sii kordhayeen oo isagu amar ku bixiyay in la joojiyo in baaritaan dadweynaha lagu sameeyo wadanka arintaas oo lagu cambaareeyay madaxweynuhu hore wuxuu sidoo kale u sheegay in haddii hir labaad oo cudurka coronavirus uu yimaado wadanka marnaba uusan kala xiri doonin sidii dhacday bilihii March iyo April oo wadanka la xiray oo qof kastana uu gurigiisa joogay laakiin hadda qaar ka mid ah gobollada wadanka ayaa waxay bilaabeenba in ay joojiyaan dib u furistii gobolladaasi maadaama kiisaska cudurka coronavirus ay cirka isku shareereen waxaana lala xiriirinayaa in sidoo kale mudaharaadyadii dadka
ay sameynayeen ololaha wada Black Lives Matter ama nolosha dadka madowga macna ay leedahay dadkaas maadaama inta badan social distance ama kala fogaansho aysan muujin maaskina aysan xinayn in sidaasi uu cudurku mar kale wadanka uu ugu faafay waxaa hadda ugu daranaa la leeyahay gobolada California, Texas, Florida iyo Arizona oo dhammaantoodba kiisasku ay cirka isku shareereen madaxweynaha hadda waxaa la leeyahay laba ka mid ah ilaaladiisa oo ama ciidamada Secret Service oo qaaska oo madaxweynaha ilaaliya ayaa laga helay ayaa la leeyahay hadda cudurkii iyadoo sidoo kalena isu soo bixi uu ku qabtay Tulsa, Oklahoma 6 ka mid ah shaqaalihii diyaarinayay isu soo baxaasi laga helay sidoo kale cudurka coronavirus laakiin madaxweynaha wali waxa uu leeyahay cudurkan wuu sii baaba'aya oo sii dhimanaya laakiin wararka maanta soo baxay waxay sheegayaan in aqalka cad uu bilaabay diyaar garowga isu diyaarinta ama wajiga labaad ee cudurka coronavirus oo laga yaabo in xilliga foolka oo bilaha August September wixii la gaaro laga yaabo in mar kale uu ku soo laba kaclayo dhimashada wadanka hadda 120,000 ayay kor u dhaaftay kiisasku 2 milyan ayay sidoo kale kor u sii dhaafeen caalamkana 9 milyan ayay gaareen kiisaska iyadoo 479,000 ay sidoo kale kiisaska ama dadka ugu geeriyooday cudurka guud ahaan caalamka sidoo kale ay gaartay guud ahaan marka intaas ayaan ku soo gabagabeynaya warbixinadii maanta oo aan idin soo gudbinayo waxaad kala socoteen Cilmi Waare Media haddii aad nala joogtay waa mahadsan tahay haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar Cilmi Waare Media gambalaalkana furo si aad u hesho warbixinada mustaqbalka soo geliyo asxaabtaadana la wadaag si ay uga faa'iidaan sida adigu baad uga faa'iidaystaa marka la kulmi doono gabi ahaantii waxaan idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo